wasiirka wasaaradda deegaanka dhirta iyo isbeddelka cimilada mudane aadan barre ducaale ayaa soo gaaray sabtida maanta magaalada Tangaarisa iyadoo socdaalkan ay ku helinayeen saraakiil ka tirsan wasaaradda gaar ahaan waaxda horumarinta dhirta iyo abuurka ee loo yaqaano forest. wasiir ducaale ayaa waxaa soo dhaweeyay barasaabka xukuumadda mudane nadiif jaamac aadan iyo taliyaha ciidanka amniga ismaamulka Mr. Maxamed Ramadaan waxaana ugu horeyn uu geeda ka abuuray xarunta tababarka beeraha ee loo yaqaano FTC. Mr. Barre ayaa ka hadlay muhiimadda geedaha iyo faa'iidada ay u leeyihiin shacabka ismaamulkan Garissa markay aato dhanka ganacsiga. waxa uuna ballan qaaday inuu xoojin doono dadaalada sare loogu qaadayo wax soo saarka beeraha. beeraley madaxweynaha wuxuu imaanay arbacada, madaxweynaha wuxuu imaan khamiis, jamca, sabti magaalada inuu joogi. lacagtii lagu dhisi lahaa beeraley suuqeeda magaalo kastaana waxay qabtaan na aragteen muuqata fiika suuq oo qudaarta kaliya soo meel arkin jama wuxuu hadal jira waay marka gabanaha la tashanayna county commissioner tafuta pia ardhi ya national government hapa town, any land ya national government tutajengea hawa soko ya bidhaa ya mashamba ya wakulima, na ile pesa iko saa hii tunajenga kama serikali 247 soko Kenya mzima. Kwani Garissa hata hoyoyinka suuqa meesha caana soo looma dhisay yoolta rasa ya dhisaysa hoyoyinka waxaan u keenaa bahalihii caanaha qaboojinay oo casirkii markay galbanayiin ama Buula Muziro galbadaan ama aadaan Buula Iftiin ama Garisere ama Buula Madina meesha ay caanaha geyshan oo qaboojiye oo ka halaabaynin. hada maadaama dhaarweete ay Franski ay dib weyni keeneen ilileta shida kwa wakulima. Mimi leo nikirudi hapa nitamwambia waziri wa kawi wa Kengen, alikuwa ameniambia atalete engine. Mimi nitamwambia kabla ya Thursday rais afike hapa hiyo engine akuja naye. Sinasikia mnapewa ng'ombe soloni na masiro embigi wuxuu loodi la bixinayo Berliansi waxaan ku dhahay eribaan rabnaa dadka bulooyin asina maxay wuxuu nimankan beerreeda nadaamsan soo loodi dawladda ay bixinaysa flashka haso beerre lama sii rabo musawir kala jira maxaa amsantiin maade wax kala duway sheega soo ma sugaysin ma khamiis ama jamcaan la sin loodi wala soo wada 8 group baan iskale chairman si ndio hivyo. Mbona watu yako sile restocking ng'ombe ya restocking sina tunapatia nyinyi na rais atakuja kuwapatia nyinyi siku ya Alhamisi ama Ijumaa. Harti matartarabtin ha tartamarabtin sini waxa harti ma lama garanaay harti magrid wara abdi oo kale chairman kinu waxa way raggi magaaladan county Garissa raggi oo ugu horeeyo oo jaamaca ka soo baxay kan buhay waxa uu sheegay ma kanayst dadkan ma kanayst may fahmin dadkan tartama ma u keena wala tarso marfin tarata shan xabaan ii raadin tarata soo qorta inta taybo arabtiin dawladda 200 oo taragta ay dawladda Poland ay ka keenaysa marka waxaan bal inta Garissa keena waxa hadda ka bilaawdana wasiir governor waxaan ku tashanay mambo ya agriculture governor kuja kwangu mimi ni ofisi yangu na agriculture minister ni karibu nitaenda na governor hata wuxuu baahan yahay garab oo national government ka maqabalaas waa idinkeeni injimadii waan dooni. Mr. Barre ayaa ka hadlay muhiimadda geedaha iyo faa'iidada ay u leeyihiin shacabka ismaamulkana. wuxuu dhanka kale ka hadlay dhibaatada uu dalka ku hayo geedka cali garoobka wuxuuna taageeray fikirka in si waliba oo lagu ciribtiri karo ay wasaaraddiisa ay ka taageeri doonto shacabka iyo xukuumadda barasaab nadiif jaamac aadan. Na county karibu 7 imekuwa shida kubwa: Tana River, Garissa, Turkana, Baringo,
Wajir, Marsabit imeleta shida sana. Shida kwa mifugo, shida kwa wakulima, shida kwa county commissioner na security team. Hata hapa Garissa mahali wahalifu wanajificha ni kwa Madenge. Sorumo? Waxaan rabaa Madenge waa arkaysan faa'iidana uu leeyahay, khasaaradiisana way badantay. Ninkii faa'iido ka hagaajisani asay u taalaa. Laakiin Madenge beeraley buu dhibay, xoololey buu dhibay, waddanka nabadgelyadiisuu dhibay. Madenge waa in meel la saaro, sooma? Hadda countiga Turkana boqolkiiba 70 dhulkii countiga Turkana Madenge buu noqday. Hatta meel xoolo lagu daajisay Turkanada laade. Marka waa laga shaqeyn. Si kastaba ahaatee dadaalka uu wasiir Ducaale ugu jira geeda abuurka ayaa waxa ujeedadiisu ay tahay sidii wax looga bedeli lahaa isbeddelka cimilada iyo shaqo abuurka dhalinyarada ku dhaqan guud ahaan dalka.